laba wiil iyo gabar aan leeyahay ayaana naankii wiil ii dhashay kadibna gabar Soomaaliya isguursanay wiil iyo gabar ay ii dhashay waa kala tagnay ayadana haddeertaan saaxiib aan leeyahay waa kala tagnay gabadhii wiilkii gabadhii ii dhashay marka waa kaas laba wiil iyo gabar aan leeyahay maxaad ka aaminsan tahay guurka badan nimanka afarta guursado saddexda labada ani meeshaan ka imid kun saaxiib waa yeelan kartaa laakiin guur haddii noqoto hal naag lay guursan kartaa hal naag ka badan haddaa guursatid ee naagahaas isdiriraan waa lagu xiraya waa ogtahay inay isdiriraan maxaa u guursata laba naagood lagu leeyahay marka Mareykanka lagama ogolo in hal naag ka badan la guursado marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada hal naag guursada ku ekaada dhaqda si fiican u dhaqda gabdhaheena Soomaaliya waa gabdho fiican oo edeb leh marka guursada hal guursada hadda afar guursadan way isdirdiranayaan way isxumeynayaan way ku xumeynayaan marka hal ka badan ha guursanina anigana shaqo abuur baan u sameeynaya dhalinyarada si ay u guursadaan waxa la ii sheegay dhalinyaradu waqtiga guurka dhaafay oo aan wali guursan maxaa u sameyn lahayd waxaan u sameyn lahaa shaqo abuur si ay u guursadaan hadday shaqaystaan gabdhaha way biilan karaan wayna guursan karaan marka Mareykanka laga soo tago hadda Soomaaliya joogtaa Soomaaliya saaxiibna waa leedahay saaxiibtaas marka laga soo tago ma jeclaan lahayd sida diinteena ba qabtay inaad afar xaas guursatid ma rabo inaan afar xaas guurso waxaan rabaa hal xaas halkaas xaas aan ku ekaado dhaqankayga iska noqotay caado iyo dhaqan ka jira Ameerika ahayd anigana waxaan iska jeclaaday hal naag inaan guursado hal naag fiican in la guursado